أنا الحمد لله دمان waa salaamaya nasteexo iyo walaalaha kale barnaamijkan maanta ka soo qayb galay haddaan su'aasha u laabto oo ah waa maxay afkaarta khaldan ee laga aaminsan yahay xijaabka runtii afkaar badan way jirtaa oo xijaabka laga aaminsan yahay kow xijaabka khaladka ugu horeeya ee dad badan ay maanta ka aaminsan yihiin waxa weeye xijaabku inuu xisbi yahay xijaabkii baa waxaa loo qaatay inuu wato sheekh gooniya xisbi gooniyana uu xijaabkii wato gabadha xijaaban markay wadada marayso waxaa la leeyahay waa tii wadaadda ahayd magaca wadaad waa xisbi laakiin waa xisbi hoos oo aad dareemi karin laakiin xijaabku xisbi baa laga dhigay waa qodobka koowaad qodobka labaad ee laga aaminsan yahay gabdhaha xijaaban waxa weeye inay yihiin gabdha mutakhalifaat ah oo rajciyaat ah gabdha dambeeya oo aan casriga la socon siday dhahaanba casriga lama socdaan gabdhaha xijaaban waa siday dhaheen qodobka saddexaad waxa weeyaan gabdhaha xijaabani inay yihiin gabdha sharwadayaal ah oo meeshay tagaanba isku dir iyo namiimo iyo qiiba xan iyo waxaan loo joogin la wareegaya qodobka koowaad haddaan u soo laabto oo ah gabadha in xijaabkii uu xisbi yahay jawaabteedu waa xijaabku xisbi ma ahan waa amar allah subxaanahu watacaala ka imaaday xijaabku xisbi ma ahan waa amar uu ilaahayna amray uuna ku sheegay fii kitaabihi alcasiiz fii suurati alaxzaab uu ilaahay ku leeyahay yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaa'i almu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn nebiyo waxaad amartaa oo aad ku dhahdaa gabdhahaaga iyo xaasaskaaga iyo gabdhaha mu'minaadka ah oo dumarka mu'minaadka ah inay xijaabkooda raariciyaan oo ay xijaabkooda xidhaan taasaa ugu dhow in lagu garto oo ay tahay gabar muslimad ah oo ka soocan dadkii kale walaashayda muslimadda ahi waxaad ogaataa xijaabkan maanta aad xiran tahay inuusan sheekh kuu xirin ama aadan u qaadan xisbi laakiin aad u qaadatay allah ka cabsiya inaad ilaahay ugu dhowaato lidaa fikirkaas jawaabtiisu waa taas oo ah inuu xijaabku xisbi ahayn balse uu yahay aayad allah subxaana watacaala tan labaad qodobka labaad oo ah gabdhaha xijaaban inay casriga la socon runtii waa fikir aada u khaldan casri waa wada joognaa oo dhammaan tan qaawan iyo tan xijaabanba hal casri baa maanta wada joognaa gabadhan xijaaban waxaaba laga yaabaa bal inay wax badan oo aysan gabadhan xijaabnayn aysan ogeyn inay iyadu og tahay xijaabku casriga waxay dad badan u fahansan yihiin waa faashionka soo baxa in lala socdo liidaa waxaa arkaysaan maanta xijaabkii sida loo galay oo maalin kasta xijaabkii casri ama fashion laga soo dhigayo ama gacmaha laga soo bahalkeeyo oo ha laga soo jeexjeexo ama dhinaca laga bixiyo gabadha marka aan sidaas la socon fashionkaas aan la socon casriga lama socoto waana fikir khaldan kan saddexaad ee ah gabdhaha muslimaadka ah inay dadka isku diraan runtii haddaad aragtay gabar xijaaban ee laba qof isku dirtay kama dhigna gabar kastaay oo xijaaban inay dadka isku dirto waxaana leeyahay gabar kasta ee xijaaban xijaabka shuruudiisa qaado ha ku ciyaarin xijaabka li'anno khalad aad samaysay baa waxaa lagu dad badan oo mujtamaca la isku qabanaya oo la leeyahay tii xijaabnayd waa dad kuwii wadaadada ahaayo xijaab weynayaashii ahaayo dadka isku diri jiray oo qiibadii oo isku dirka la wareegi jiray waxaa laga yaabaa mid xijaaban xijaabku waa taqwa waa alla ka cabsi ma ahan wax la iska xirtay haddaad adigu u xiratay inaad dad isaga qarisid amase afkaar kale aad u xiratay ha ku ciyaarin xijaabka magaca gabadha muslimadda ah baa xambaarsan tahay waxaa xambaarsan tahay waa aayaddii allah subxaana watacaala marka waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha muslimaadka ah meel kasta ay joogaan ama pilot noqo oo diyaarad duuliyo noqo ama dhakhtar noqo xaal kasta aad ku sugan tahay waa inaad xijaabkaada ka tagin ma ahan gabadha hadday ameerika tagto inay xijaabkeeda dhigto ma ahan gabadhu hadday dhakhtarad noqoto inay xijaabkeeda ka tagto ma ahan gabadhu diyaarad hadday duulinayso inay xijaabkeeda ka tagto laakiin mowqif kasta ay taagan tahay waa inay gabadhu xijaabkeeda ka faa'iidaysataa intaasaa kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran ustaada ikraam su-aasha kaloo aan iisoo bandhigaya waxay tahay waxaa dadku waxay yidhahdaan gabdhaha xijaaban xijaabku uma xirtaan ilaahay ka cabsi inay ilaahay ugu dhawaadaan waxay u xirtaan waa wax lagu soo barbaariyey lagu soo koriyey iyo dhaqan ahaan ay u haystaan taas maxaa ka dhahi laheedeen
waan wada salaamayaa walaalaheen kasoo qaybgalayaasha iyo daadihiyaasha barnaamijka. waxaan si qaas u salaamayaa TV-ga caalamiga ah ee Somali General oo nagu sharfay maanta inaan halkaan imaano. haddaan usoo laabtaa ama usoo raaraca su-aasha ay abaayo weydiisay, ma ahan xijaabku wax marna la xiranayo marna laga tagaayo. xijaabku waa aayad Allah subxaanahu wa tacaala oo quraankiisa ku sheegay, waana waajib. gabar walba oo muslimad ah inay xijaabka xirato waa waajib. waa waxa kala saaraya gabadha muslimadda ah iyo gabadha kaleeto aan muslimadda ahayn. xijaabku u fiirso, gabadha muslimadda ah oo xijaaban iyo gabadh aan xijaabnayn marka ay soo raacaan ama ay wada socdaan, gabadha muslimadda ah oo xijaaban waa la sharfaa, waana la qiimeeyaa, wadadana waa loo baneeyaa. bal midda xijaaban aan xijaabanayn haranti bay ilmaha kusii qaadaan ama wiilasha. sidoo kale aayadda ilaahay qur-aanka aayaddiisa wuxuu ku leeyahay, wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuun. xijaabku ma ahan wax marna laga tegaayo marna la qaadanayo. ninka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan, xijaabkaas waa waajib inuu xirto. xijaabku waa wax gabar walba oo muslimad ah cadeynayo inay gabar muslimad tahay. ma ahan wax ay waalidkeen ay nagu qasbeen inaan xirano, balse alxamdulilah waalidkeen khayr Allah siiyo wuu nagu tababaray oo tababar uuna siiyey ahaayeen. tababarka uuna siiyey ilaahay alxamdulilah waan ku guuleysanay oo annaga ayaa xijaabka naga hadeertaaneeto u xiranay Allah ka cabsi iyo inuu sharaf yahay. ma ahan wax aan hooyo ooga baqnay iyo wax aan wado ku mareyno oo ooga baqeyno ummad, balse waxaan u xiranay xijaabka Allah ka cabsi inaan ilaahay u dhawaano naxariistiisa iyo raxmadiisa. waxaan kusoo gabagabeynayaa gabar walba oo muslimad ah oo kula dardaarmihayaa, walaalay xijaabka xiro, ilaahay ka baq. ma ahan xijaabku wax marna laga tegaayo marna la qaadanayo, balse xijaabku waa waajib. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كهذا عافيماد أهان دتك برنا عم جامعة عافيماد أدينا مركز طلابا جونا مركز توحنا القراءة صعنا يعني flexibility بدن على بهنها هي رقاق بدن الناس مسيد أذيك وحجاب كاي قبتد ونكون دبينين وحبنا كعلنين وضن كرتا حبرش هذا لبنا وما أرجنا أما أهانت يعني قولي علاسي ما لب ميون قن marka waxaan kusoo gaabin lahaa gabdhaha uma leh xijaabka ama khamaarka la xirana ama qaawanaanta sida gaalada camal maalinba wax la xiranayo inay ahayn horumar ama ay noqoneen qofkii inuu ilbaxay hadduu xijaabka iska tuuro. marka xijaabkiina wataasas. jazaak allah asmaa in barnaamijka la soo gabagabeynaa waxa kusoo gabagabeynaa hooyada in la ogaado hooyo inay tahay madaraso waa laf dhabarka bulshada. inaan yani la dhihin waxba ma fidin kartid, dadka ma hor istaagi kartid, dadka wax ma bari kartid. taas afkaartaas khaldan ee Soomaalida aaminsan tahay inay iskaga tagaan, balse ay isku dadaalaan inay dhisaan gabdhihii, because hooyo bari waxay noqonaysaa hooyo, waxay noqonaysaa xaas, waxay noqonaysaa daris oo qof daris lala ah. waxaan bulshada Soomaaliyeed aad ugu dhiirigelinaynaa inay gabdhaha bahdilka ay ku sameeyaan gabdhaha maxaa la wadaadada isqaasatan ah in laga joojiyo, because inay yihiin dadka maanta diinta la rabay inay dadka faraan. gabdhihii kale waxyaalihii ragga ay fari karaan inay ayaga faraan loo baahan yahay. wa aqulu qawli hada wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.